hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland Ucid Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in Soomaaliland ay u fidinayso casuumad Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax sidoo kale wuxuu ka hadlay rabshadaha iyo colaadaha ka jira deegaanka Ceelafweyn warkaas waxa inoo haya wariyahayaga Faysal Fifa injineer Faysal Cali Waraabe hogaamiyaha xisbiga cadaaladda ee daryeelka Ucid oo qayb ka mid ah fidiyaanka kula hadlayay halkan oo hoyga uu ka degay magaalada Hargeysa ay wax Ilaahay ka bariyay inuu ku guuleeyo ergada xilligan ku sugan deegaanka Ceelafweyn arrintan abadaynta ay u kaceen isagoona tilmaamay in ilaa hadda hawshaasi u socoto sidii la rabay waan taariikhinayaa dadka ka yimi beeradahoodii xaasaskoodii caruurahoodii isuux u yimi waxaanay dabaqayaan amarkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Ilaahayna yiri sula taxjaar inagu shiri wayn laba qayb haday isqabsadaan aslaxu baynahu marka amarkii Ilaahay bay oofinayaan way qaateen in ummadda walaalaha haday isqabsadaan ka dhax galo way u dhabar adeegeen shan cishay joogeen iyo weli markaa aanay imanin labada family-ga is haysta labada dhinac ee ka socda waxaan jeclahay insha Allah ta'ala waxaan ka soo shaqeynaa inaanu marka hore jawi wanaagsan oo ay nabad ku ka abuurto lagu dhax abuuro inuu sameysmo kiina Ilaahay inuu hawlgariyo waxa maalinle labada family-ga waa qoys waanu sheegnay dadka arrintu khusayso inay arrintooda haystaan oonay dad waxa jira haybta la wadaaga arag uga eeg laakiin ay iyagu dhibaatadana taaban caruurahoodii iyo guryahoodii nabad yihiin idna ka dhimanin ajendayaal gaarana leh oo qaar xitaa shisheeyayaal ay soo dirsadeen wala garo waxay Soomaaliland maxaa lagu baabiin karaa wax la baabiyo iyo la dhex karo laakiin waxaan sheegay Soomaaliland waa wasad qura lama kala dhex geli karayo iyada waxaan taasaan ku baraarujinay dadkan isku haybta yihiin haddana ajendayaasha gaarka leh inaanay arrintooda martuuga noqon ay arrintooda goostaan afka isa saaraan arrintaas way naga dhamaanaysaa si dhaqso ah inaga dhamaanaysaa bidnillaahi kariim wa ducaynina sidoo kale waxa uu hambalyo u diray ciidamada kala duwan ee Soomaaliland waxa ayana taariikhdeena ciidamadeena qaranka daafacaya iyo qolada halkaas taleetolayda haysa qabiilku asabiya qabiile ku dagaalamaysa ayaa culimadu waxay yiraahdaan waa shahiid ma kaas qabiil asabiya qabiile ku dagaalamaya kuwina shahiidina oo dhulkooda daafacaya waan taanideynaya arrintaasna waxa weeye markasta waxa adkaada xaq maamul goboleedka Puntland iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayuu dhanka kale fariin محمد سياد برا وعيدا بدنا أفريقيا لما سنة لقوا بربرية USA SM كبربرية محل وقعت كاني وعدالة در حقهم بعد كاني طلع يدنا ما تحقق كات كاني حلينا هنا الشعبية غير قروي غير بوساسو أنا وكيس كوا حنا هاي سناون دولة فدرالك معمولك حمر عن كل رمسك أيه فرماتنا وحس أنا طلع يدي سوء علي طلع ينهارك محمد سياد برقي ديسي هو وقت مقدشو ويقل قلتون برقي سي مالك تشبيرة عشان أرجع عن طمع ما كقل قلتون كدوش عون وده كدولي دون تاني أقول قاعد لي هبط فريدة مقدشو وقت كقل قلتون تاني طلع هدات كانت هي هذه شنطة يقولنا ku dheeraad ka madaxtooyada ku haysatid waa ku qurbaan waa ku ajnabi muqdisho way bilgaanaysa muqdisho Hargeysana soo jireen bilayeen inay wixii dulmi ka wada dagaalamaan taariikhda waa ku isku xidhanahay dulmi revenge ma naqaano laakiin dulmiga iska celina hogaamiyuhu wuxuu sidoo kale si weyn u bogaadiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya Abiy Ahmed talaabooyinka horumarneed ee dhanka nabadaynta ee xilligan uu ku fogan yahay isaguna dhanka kale jawaab ka bixiya dalka ka soo baxay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar waxaan tahniyeynayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Soomaaliland dhiigii dalba ka dhaxeeya waa strategic partners baynu inaguna Itoobiya iyo Djibouti
kilalka shanaad iyo Djibouti Somaliland waa isku qor isku dabreynaa kala garan maayo saddex mafris waxaan jecelahay inaan halkaas soonaha shanaadna soo xijinaa wanaagii iyo wada dhalashadii bridge-kii wada dhisnaa waxaan jecelahay halkan ku casuunay insha Allah taala qalbi dhagax ay Muqdisho dhiibtay waxaan caado u ahaan jiray Soomaalida in cadow la isku dhiibo isna casuumina insha Allah taala sidaan bila rafiic casuunay sidaan aan xalano casuunay dad waxaan naysday walaala dadka iska xigaanahay insha Allah halkan baan ka hagaajinaa Soomaaliya waxaan qoonsan platformka Soomaali shanta Soomaali laga hagaajiyo halkan baa laga shanta Soomaali ba looga heesi jiray heesti wax ficil baan ku bedelnaa ilaa aan ka xumahay inuu madaxweynihii kilalka shanaadna inuu yiraahdo dadkayga waxaan u leeyahay wali amri waxa ilaaha Soomaali ay tira falaadhi gilgirato kaagama goob dadkii aan baa lagu xay xabad lagu dhafaan ba xubur aas ku qabatay anu wataan ka sheegay the only person qof qoray Soomaali ka sheegay baan ahay kuwii caayay iga daba hadlay culimadaasi ta khayrawayashi iga daba hadlay markaan hawar meesha waxa ka socdaa waxaan Chechnya ka socotay baan tii Ingiriis ee Ruushku dadka Chechnya oo yiri ninka madaxda Chechnya waxa doonta sameeyaan muslim arkin arintaas waxa leenahay in lagu amriyo in kalaba cadaaladu ma you have to wait face karisa maxkamada wax cadeyn karoon waa maxkamadu ma ku cadeyn karta in la adu amar ofisiin adu is ofinisay waan soo dhaweynaa xaragad ONLF iyo magaranaysa heshiiska ay sameysteen ka Eritrea oo sameeyay iyo Ethiopia soo dhaweynaa geeska waxaan doonayaa nabad ka sameeyno geesku wadad isku mid ah kala garan maayo inuu diray Faisal Maxamed Aadan Faisal fi TV عالمي Somali Cable Hargeysa